daawadayaal barnaamijkani wuxuu ku saabsan yahay qayb ka mid ah qaybaha maansada soomaalida ama raggii hore ay u maansoon jireen marka ay tirinayaan maansooyinka. wuxuu ku saabsan yahay jiiftada. awal hore waxaan ka soo hadalnay barnaamijyo hore, haddaad la socoteen, gabayga iyo geeraarka sida ay u dhacaan iyo siyaabaha loo tiriyo iyo waxyaalaha ay ka kooban yihiin, sida miisaankooda iyo haddii alla kuu roon yahay xuruufta ay ku socdaan ee qaafiyadda loogu magacaabo. maanta waxaan halkan ka soo jeedinaynaa jiiftada oo ah qaybta saddexaad, oo ah habka saddexaad ee ay soomaalidii hore, ragga hore oo maansayahanada ahi ay wax ku tirin jireen. jiiftadu miisaan ahaan waa ka dheer tahay geeraarka. haddii labada dhudood ee ay ka kooban tahay hal beyt loo adeegsado ama loo aqoonsado, marka in dhaweydba gabaygii waanigii gulaale ayay saasi u dhacdaa. marka way ka dheer tahay geeraarka. haddii labadaa dhudood oo hore in dhaweydba gabaygii iyo waanigii gulaale ee hal meelis ama hal beyt loo aqoonsado, waa ka dheer tahay geeraarka. gabayga ayayna ku dhowdahay, inkastoo ay isaga ay ku kala duwan yihiin xagga habdhaca. ujeedooyin badan ayaa loo adeegsadaa ama marka jiiftada loo adeegsadaa, oo sohodin male ujeedooyinku. kuwa gabayga oo kale ama kuwa geeraarka oo kale ayaa loo adeegsan karaa, laakiin waxaad moodaa inay u badnayd waaga hore wadaadadu inay adeegsan jireeno, oo wadaadada weliba oo dhan de ma ahe, waa wadaadada hal abuurnimaduna ku duugan tahay oo maansayahanada ah. marka waxay u isticmaali jireen jiiftada inta badan in ay dadka ku wacdiyaan, maadaama dadkii uusan ku hadlin af carabi oo af soomaali ay ku hadlo, markaana la doonayo in dadkii ay fahmaan waxa uu wadaadku sheegayo. marka wadaadaduna kama ilduufino, way ogaayeen in dadku ama soomaalidu ay jeceshahay maansada. sidaa darteed baa wacdigii loo xambaariya maanso laga maqli og yahay ama dhagaha loogu taagayaa si ka badan haddii hadal caadi ah loogu sheegi lahaa. marka wadaadadii waxay keeneen soomaalidu ujeeddo cusub oo ay ku soo kordhiyeen ujeedooyinka maansada soomaalida. ujeeddada waxaa la yidhahdaa ujeeddada alifkaya ama alif waxaan ka iri. marka waxay xuruufta alifka soddonkiisa carabiga ah ayay ku samayn jireen, haddii alla kuu roon yahay, wacdigooda ayay ku toosin jireen. markaasay oran jireen alif wuxuu yidhi, ama alifyeen, ba'iteen, xa'iteen, sa'iteen, ra'iteen, ama alif waxaan ka iri, ba waxaan ka iri, ta waxaan ka iri, oo ay kusoo haddii alla kuu roon yahay ku toosinayaan ama ay u xambaarinayaan ujeedooyinka ay ka leeyihiin wacdiga ay maalintaa jeedinayaan, oo dadka ay qalbigooda ku jircanayaan, diintana ay ku bari jireen. taas ayaa dadka caamada u dhaantay inay carabi, haddii alla kuu roon yahay, xagga dikriga iyo qasaa'idka iyo inay af soomaali ku bedelaan oo af soomaali ay ku maqlaan ayaa u dhaami jirtay ama ay ka jeclaayeen midda carabiga ah. waxaa kolka lagama maarmaana intaas haddaan sheegay in aan tusaaleeyo jiiftadu sida ay u dhacdo iyo raggii tirin jiray qaar ka mid ah inaan tusaalayaal ka soo qaato. waxaan u horumarinayaa jiiftada maraha dadka suugaanyahanada ahi ama maansada soomaalida taariikhdeeda la socdaa ay og yihiin in ay ugu cimri dheer tahay ama ay ugu fog tahay jiifto la tiriyo. jiiftadaa waxaa tiriyey, allah u naxariistay, ninkii caalimka ahaa weynaaye la oran jiray xaaji cali cabdiraxmaan fiqi oo xaaji cali majeerteen ku magac dheeraa. wuxuu ahaa nin diinta aada u faafiya. dooxada nugaalid ayuu joogi jiray waagi hore, kadibna wuu ka soo wareegayoo wuxuu yimid haddii dhulka hadda aanu u naqaan shabeellada hoose. halkaas uu diinta ka faafin jiray qarnigii 19aad bilowgiisii ilaa bartamihiisii. markaa isagu wuxuu ahaa culimadii qarnigii 18aad aakhirkeedii ilaa qarnigii 19aad bartamaheedii soo gaaray,
oo diinta aada iyo aada u faafiyey haddii alla ku reeyo maansayahana ahaa. marka maansadiisa wuxuu u isticmaali jiray inta badan faafinta diinta islaamka oo uu ugu jircinayo saan soo sheegay dadkii caamada ahaa ee aan af carabiga ku hadli jirin oo soomaaliyeed. haddii alla ku alifiyeen uu ka bilaabay oo alifka sodonkiisa ku socotay, laakiin in yar inaga soo gaadhayo waraaqihii ay ku qoraayeen ay waa hore lumeen, laakiin waxaa laga helay dhowr alifka iyo ba'da iyo ta'da iyo xa'da iyo jiimka iyo kha'da, intaas ayaa ka badbaaday. intii kale haddii alla ku roon yahay waayaha ayay ku lumeen. marka jiiftadu siday u dhacayso anagoo tusaalaynaya, bal tii ugu horreysay oo aan sheegay oo xaaji cali ahayd aan ka soo qabto dhowr bayd. wuxuu yidhi: alifyeen ibnow aadni arrinkaad ka dhacan tahay, ilaah baa ilaahayna dadna waa addoommadii, urur noolba lagu waani arrafo iyo soonqaad, adse weli ma aabayne ma oboo kalaa tahay. taalooyinkeer awdan maadigaa ka amar weyn, wadka duulka aynabay adma wuusan ku aqoon, mase wuusan ku ogeyn, mase waad ka adag tahay, mase inuusan kuu iman axdibow lahaydeen, arxan inuusan garahaynin nebigii ma aynanin, injiraha hadduu laayana waa inuu alaal yahay. eedaadya ku ogaada nimaan aakhiruu falan, alwareegada adkaysta omos baa horreeyee, allow yaa ogeysiiya inay eeri go-an tahay, aan waa aamusahayaa wax afeef iga tahay, ninna yuu hadhow ooyin goortala abaajiday. qaybtaas waa qaybtii alifka. qaybta jiinka haddaan soo qabto, wuxuu yidhi: jiinyeen jabow aadni ma jalbeebanaysaa, jid xun baad ku socotaa iyo jiscin ma u helaysaa, jees jees miyaa ku habban nin asaagi jiibsaday, jaankaaga waxaad fuudi jid siraad ma moog tahay, ninna jaamo uma talo nin joombiyadna ka af badan, jileeciisu waa sida tinjaahiisna uma kaco, ninkaan jiirta laga saarin duul jahanabaad noqoy. aan la iima jirib dhiga iyo jinatuurku waa been, muslim way isku wada joogeen jinni yuusan kuu talin, nafta waad jeclaydeene jafka ha iska xoorina. jahanamiyo ololkeeda ma nin jiir ulaa jira, waataad u wada jeeday ragga jawhartiisii, maxaa niman jamaamiira jeexa looga soo kacay, maraggii jajuubahayey aad ma joojinaysaa, jeer dhaafka nebi waayey ma jeclaysanaysaa, qabrigiina kuu jeexan loxodkiina kuu jaran. jiirkaaga dixiraale meelaha jinaadka ah, lafta joofabaa harisaantaada jiliftaa, jeer hore waxaad faratay sildigaa ku marakici, warqad beriba lagu jiiday jeebkaa laguu gelin, wax adduunkii lala joogay majikaartan baa jira, in qiyaama jiri doono ninna yuusan jaaxidin, jimcaha dadkuu maraga jinnigiiyo wanaaskaba. jalaalaynku wuxuu sheegay ma ku jaaxidaynaa, anjuujaa u dhiman maayaan waxba iiga juusayn, adna waana uma jeedo anna waaba jiijaday, haddii aadan jaqahaynin hadalkayga jawhara, jinnigii ishaacaddaa iyo jafaliilla kuu talib. taasi waxaa weeye waa jiifto tusaale aan uga soo qaatay jiiftooyinkii allaha u naxariistay xaaji cali cabdiraxmaan fiqi. waxaa jirtay jiifto kale oo iyadu wax badan ka dambeysay oo ah 1950 bilowgoodii, waagii ay leegadu calanwaleynaysay oo ummadda ay hogaaminaysay ee gobonnimada iyo xornimada haddii alla kuu roon yahay loo dagaalamahayay oo dadku uu ulqura ahaa. waagaas waxaa jiray nin gabya ah oo dadka soomaaliyeed aad ay u dhagaysan jireen oo la odhan jiray cali xuseen xirsi, allaha u naxariistee, oo ahaa gabyaagii leegada. haddaad doontana aad ku magacaabi karto gabyaagii xorriyadda iyo gobonnimada, haddaad doontana aad ku magacaabi karayso. cali xuseen allaha u naxariistee gabayga iyo jiiftada iyo geeraarka intaba waa tirin jiray, waana aad iyo aad baana waqtigiisii iyo kadibba loo jeclaayo nin wuxuu ahaa miro waaweyn leh. 1976 ayuu xamar ku dhintay, allah u naxariistay cali xuseen,
waa dadka inaga mudan inaynu mar walba haddaynu soomaali nahay oo ay gobonnimadu macnaba nala leedahay ay tahay inaynu xusuusanno. cali xuseen dhowr iyo kontonkii saan soo sheegay bilowgoodii dadku soomaalida ahay leegada ayay inta badan raacsaneen, laakiin haddana waxaa jira dad gumaysiga talyaanigu uu haddii alla ku shaqaysan jiray oo wax u sheegi jiray oo waxna siin jiray oo dadka gobonnimada u dagaalamaya kasoo horjeedi jiray. waa walbana waa jiraan, wakti walbana waa jiraan, haddeer bay jiraan, shalay jireen, baray jiri doonaan. laakiin waa dad tiro yar oo laga tiro badan yahay, inkastoo ay cod dheeryihiin mararka qaarkood. dadkaa isaga ah leegadu aad bay ula dagaalami jirtay oo sida ay ula dagaalamto talyaaniga iyo caddaanka ayay ula dagaalami jireen. nin marka waxaa jiri jiray talyaaniga u shaqayn jirayoo lagu qaybiyey leegada inuu dhibaato u geysto oo soo jaajuuso oo xabsiga ku guro oo nin madaxa buu ahaa talyaanigu uu madax ka dhigay. ninkaasi aad iyo aad ayuu u lugoyn jiray haddii alla kuu ron yahay gobonnimo raggii gobonnimo doonka ahay leegada ahaa. dabadeedna maalinka dambe ayaa waxaa loo bedelay, wax lagu qoonsaday la garan maaye talyaaniga ayaa wuxuu u bedelay magaalada boosaaso oo markaa halkaa ayaa shaqo loogu diray. shaqadii markii loogu diray halkii haddiiba ilaahay amarkii xaqi baa kusoo degayo wuu dhintay. sheekadu siday leedahay ama cali xuseen baa laga maqlay ama aniga qudhayduba aan ka maqlay isagoo sheegaya ninkii isaga ahaa dadkii boosaaso joogay wuxuu waxaa laga waayey wax aasa oo qabri geeya. nin walbaa wuxuu yidhi anigu aasi maayo ninkaa haddii alla kuu ron yahay gumaysi raaca ah oo haddii talyaanigu soo dirsaday anigu aasi mahayo. waxaa la yidhi meel cidlaa ayaa bahal ku cunay ama uu ku baaba'ay jirkiisii ayaa la yidhi. waa sida laleeyahay, marka badbadis baa mase waa run ilaah baa og. laakiin ujeeddada un waxa weeye sida ay dadku aysan u jeclayn ama u nacbaayeen haddii alla kuu ron yahay dadka u shaqeeya gumaysiga waktigaas iyada ah. markaa cali xuseen baa warkii loo sheegay, markaasuu wuxuu tiriyaa jiiftada aan idin marin doono oo aan weli ku tusaaleynayo jiiftadu sida ay u dhacdo oo aysan gabayna ahayn geeraarna ahayn laakiin ay tahay jiifto. cali xuseen wuxuu yidhi in dhaweydba dirisoonku waa xafiiska leegada, waa dirisione, waa aftalyaani weeye. marka dirisoonka leegada la oran jiray. marka waagaa xoogaa khilaaf ahaa dhacay leegada dhexdeeda. marka dadkii aad u soo buuxin jiray habeenka axadda ayuu ka waayey meeshii oo khilaaf baa dhacay leegada dhexdeeda. taasuu markii hore ka calaacalaya. in dhaweydba dirisoonkan dadku kuma dhammaanine wixii leegu doonayey baa ragna laga daboolay nin ibliis la daawaystay wacdi kuma dawoobo dhulow yaa ku daafici dadkaagii xumaaye. dhulkii buu la hadla. cambarkii dushaadana rag kale iska daaqaye dahabkaad lahayd baa dibad looga saaraye ilmo kaa dareertiyo wax dhan baa daraashaye oo aadna didisaye waa lagu dayaacaye. haddii aadan duriyadaadan diirku kuu dhaqaaqayn oo ayan waxaa dooni duhur kuu dhammaynayn dacwigaaga iga daah waxbahay dagaalin. dhulkii buu la hadlay. afartaa daleeye ee dood kalena waxay tahay ninkii diinta iibsaday dembi buu ka qaadiye dullina waa ka helayaa ifka haysdibiriye inuu naar ku daa'imina rabbi wou dadaaliye. dadowsa maqal nin dulin qaaday wax ilow dambeeye xaqu hadduu ku soo degana nina duugi maayo qabrigiina loo diidyo ku dabooli waaye wax dabayshu noo keentay in dhul waa daliigay. dadowsa maqal nin dulin qaaday wax ilow dambeeye xaqu hadduu ku soo degana nina duugi maayo qabrigiina loo diid oo ku dabooli waaye wax dabayshu noo keentay in dhul waa daliigay. diiwaanka kuma yaal shaafici nin diiday dariiqooyinkii dhaaf nebigana dafaariyay dalla malaha aakhiro ifkana darajo beeliyay. doofaar wadkii helay u dubaaxin mayno hadduu daanka buuxsadayna rabbi waa ka daadshay.
ninkiisaa damcaayee dubka sare madoobow waan kula dardaarmaya dacwigayga maqalo ha ku daya ninkaa hoogay dhulku yuu ku diidina buu ilaahu ku naxariiso. kaasina wuxuu ahaa cali xuseen xirsi, gabyaagii leegada, gabyaagii gobonnimo doonka iyo xorriyadda. tusaale saddexaad oo waxaan soo qaadanayaa oo jiiftada ku saabsan oo waxaa jiifta tahay aada ku garan karayso. tusaalahan waxaan kasoo qaadanayaa gabyaagii isaguna ninka weyn ahaa. tusaalahan waxaan kasoo qaadanayaa gabyaagii weynaa ee qarnigii 20aad barkiisii dambe dhagaha soomaalida haystay iyo maqalkooda, gabyaagii murtida badnaa ee ereyada waaweynaa oo haddii alla kuu roon yahay luuqdiisa la yaab kale oo muusiga lahaydna ay soomaalidu ku jeclaayeen. nin kale sheegi maaye waxaan u jeedaa cali cilmi afyare. cali cilmi afyare masafadan wuxuu tiriyey bilihii ugu horreeyey sanadkii 1967 markaas soomaalidu aad bay u ogsanayd oo u kacsanaydoo haddii alla kuu roon yahay arrintii jabuuti ayaa socotayoo madaxweyne digool, madaxweynihii faransiisku, waa ka yidhi afti baan ka qaadayaayo jabuutiyo inay doonayaan in ay haddii alla kuu roon yahay gobonnimo qaataan oo madax banaanaadaan iyo inay kusii jiraan xukunka faransiiska. markaa dowladdii soomaalida oo iskaba tabar yarayd markaasoo 7 sano jirtay ayaa haddii alla kuu roon yahay arrintaas iyada ah inay gasho damacday oo ku jirtay oo xoogaa ololeysay xagga idaacadaha iyo raadiyaha iyo ololeysay. laakiin cali afyare iyo raggii lamidka ahaa waxay rabeen waxaas wax ka badan in dowladda soomaalidu samayso oo meeshaba haddii alla kuu roon yahay laga muujiyo in niman ay walaala yihiin oo reer jabuuti la yidhaahdo soomaali ahi ay halkaa ku holgan yihiin oo halkaas haddii alla kuu roon yahay ama lagu laynaayo ama lagu haddii alla kuu roon yahay gobonnimadooda lagu seejinayo. cali afyare wuxuu ku bilaabayaa arar qurux badan oo muujinaysa waxa soo socda iyo waxa ka buuxaya qalbigiisa, oo muujinaysa yani dhibaatada jabuuti haysta siduu uga danqanayo ayuu ku bilaabayaa arartaas oo 2 qaybood u qaybsan. qaybta dambana wuxuu ku sheegayaa, wuxuu iska hormarinayaa rag badan oo gabi jiray uu leeyahay lama gudbooni. taana inuu ku keli yahay baan u malayno, waxay u badan tahay ragga gabi jiray oo soomaalidu in walba inuu yidhaahdo aniga maaha cid kale ma jirto. laakiin cali afyare rag badan oo uu kaba horreeyay saan qiyaasayo ayuu iska hormariyey oo uu leeyahay hebel iyo hebel ma gaaro. inkastoo sidaan soo sheegay aan rumaysnahay qaar badan oo ka mid ah inuu kaga horreeyay gabayga iyo maansida tirinteeda. arartii wuxuu ku yidhi: in dhaweydba gabaygii waa anigii gulaale ee gardaadka iyo feeraha kama soo guraynine, sidii neef gidaad qaba waa anigii gabloola ee godolka iyo dhaydii soo gaacin maynine. xalay gelin dhexaadkay dadku gamacsanaayeen waxay gaareen mooyiye waan soo gufaacaye, sida aar guhaad qaba gurxanka iyo reenkii goob xaaladkaan dhigay iyo gahangahaygii guumaysta fiintiyo galowga dhawaaqaye guulaamo iyo roob guga lagama waayo dirir goor cadda a maray kolna gaaxan maayo. sidii goonni iyo raage galwiyeera maahiye sayidkii gadiisiiyo cali dhuux ma gaaro geesigii qamaan iyo guubaabshihii cumar, garashadii cismaan yuusuf iyo gogol dhigiisii gahayr iyo salaam baa geel dhalay ku qaataye raggii gabayga loo qiray weli lama gudboonay. guun iyo ciroolaa hadal gabagabeeye nimaan guud cadda ahayn waa gababaxkiisuye, inkastoon ka guul helay gootooyin fara badan weli gaadahan rabay geedaa ka laabane. intaas waa arartii. wuxuu ku xijinayaa jabuuti in loo hiiliyo oo dagaalka lala galo oo dowladda ayuu ku goobana leeyahay raadiyo muqdisho iyo raadiyo hargeysa heesaha iyo gabayada ka socdaa haddii aan wax lagu darin waxba tari maayaane, in haddii alla ku roon yahay si fiican loo gargaaraayo loo garabgaraad haddii ummadda jabuuti joogta ee u dagaalamaysa xorriyaddeeda. markaasuu yidhi gurmago-an hadduu yahay geed keligii gooniya, gabayooxa dhaxantiyo gariirkaama bi'iyo geerida walaalkaa
adna garab bannaanide gacalkay ha baaba'o anna gaadis baan ahay gardariya isyaaliyaal ubadkaagu ha u go'o guryahaagii oo maqan hadba garax qabow shubo garaadlaawayaalow gobonnimadu ma aha sida guul lahayn yidhi kufri lama gudboonine laynama gabraareen waa gamacnay mooyiye sida guul lahayn yidhi kufri lama gudboonine laynama gabraareen waa gamacnay mooyiye godob adiga kaa maqan haddii aadan u guurayn nin kaleeto gacantii wax ku goosan mayside gabar reer la qaadiyo gabaygaanu leenahay galaayuuska beentaa meel laguma gaaro afgaloofa iyo guux yaan lagu gaboobine waxaa nala gudboon maanta gunti laysku giijo kaasuu wuxuu rabaa cali cilmi afyar allah u naxariiste arrinta inta la cusleeyo oo dowladda soomaalidu soo gasho oo faransiisku markaa ka qayliyo oo adduunku arrintii ogaado in arrintii la galo si fiican loo galo ayuu doonayaa cali cilmi afyare ma raba oo keliya in heeso iyo gabayo keliya jabuuti lagu xoreeyo markaasuu yidhi ninkii guusha dheelmiyo ninkii guban lahaa mirir guluf iyo colaad iyo gebagabiyo duulaan guutooyin fara badan haddaan la iska gowricin gariirka iyo qaylada haddaan gabalba meel qaban sidii gabaxla dayreed haddaan dhiigu gobolayn gorgorka iyo dhuuriyadu haddii aanay ku gaardiyin gorgorka iyo dhuuriyadu haddii aanay ku gaardiyin gadiidkiiyo alleylkii haddaan gogasha laga kicin guuriyo caraabiyo gudguduudka waa beri sidii goosan weergalay haddaan la ysku gow odhan nin waliba wuxuu gudo ama uu gar leeyahay goortii la kala haro dunidaa galaysa nfd gujiya ciil awalna la ku gaadiyay garbaduubkii loo xiray weli lagama goynine eegana gumaysigu ku galgalay jabuutiye dadkii geli lahaa woodka gaban laguma reebine waxa loo gableeyahay doqontaan waxgaranine gowraca sidii hore soomaali ugu galib gabashadu ma fiicne eeyaynaan ku noqonine geesiga ilaah baa garabkiisa taagane taariikhda guudnimo goobihii la soo maray gabal inagu taal iyo ceeb kuma gaboobine geyigaynu leenahay gablan yuusan noqonine googoynta iyo qaybta haddaan geeri laga xigin gabadheennu guur iyo gayaan yeelan mayso tixdii gabaygii cali cilmi afyare gabaygii yaanan odhanne waa qalade jiiftadii cali cilmi afyare uu jabuuti ku gargaarayey 1967 bilowgii halkaa waxaa inoogu dhammaaday jiiftadii cali cilmi afyare uu jabuuti ugu gargaarayey bilowgii sanadkii 1967 markaasoo 67 laakiin murtida ugu weyn oo haddii alla kuu doonaya ku jirtaa shiiftada ilaa maanse kasta waxbaa laga qabsadaaye waxay tahay meesha uu ku leeyahay oo jabuuti ha loo hiliyo waa walaale berrina iyagaa kuu hiline meesha uu ku leeyahay gurmago-an hadduu yahay geed keligii gooniya gabayooxa dhaxantiyo gariirka ama bi'iyo geerida walaalkaa adna gara bannaanide waxay u eg tahay murtidaasi mid ka horreysay uu tiriyey nin la odhan jiray maxamed aadan caws oo ay degaan ahaana ku kala fogaayeen oo la odhan jiray yowle wuxuu yidhi ninkii madi ahaadaaba waa maxamedow quuse ma magoolo geed keliyahoo milic ku yaalaaye inkastoo mayay qooyo waa muruxsanaadaaye marka waa isku macne waxay ku kala duwan yihiin oo keliya yowlena waa gebiyey cali cilmi afyarana jiifta ayuu tiriyey ama masafo labadu waa isku mide daawadayaal halkaa waxaa ku dhammaaday barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha waa inoo barnaamij kale oo kan lamid ah hadduu eebbaydmo iyo toddobaadada soo socda